dawladda Sacuudiga ayaa dhawaan ku dhawaaqday in dib loo bilaabi doono cumrada oo muddo 7 bilood ah aan la gudan. Dadka ku nool gudaha Sacuudiga ayaa bilaabi doona gudashada cumrada 4 bisha dambe iyadoo muslimiinta caalamkana loo fasixi doono 1 bisha November. Go'aankan ayaa ku soo beegmay iyadoo wali dunida farabaan ku hayo cudurka COVID-19. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya qaabka loo bilaabi doono cumrada iyo faahfaahinta la xiriirta. Qortooyada Sacuudiga ayaa shaacisay in si tallaabo ah loo furi doono cimrada iyada oo si taxadar badan lagu bilaabayo sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ka howlgala warbaahinta Sacuudiga isagoo tilmaamaya qaabka loo furayo iyo sababaha dhaliyay in waqtigan dib loo furo cimrada. Waxa keenay in dib loo furo waxa weeyaan baahida cibaado ay dadka muslimiinta u qabaan. Waxa kale oo yana jirta in ay malaha dawladdu doonayso in si quyar ah noloshii loo caadiyeeyo kadib muddo dheer oo lagu jiray xayiraad dhinacyo badan taabatay. Waxa kale oo iyana muuqata hoos u dhac dhinaca faafitaanka xanuunka marka la barbar dhigo xilliyadii hore. Waxaa loo furayaa si tijaabo ah iyadoo oo lagu bilaabayo tiro yar oo dad oo lagu qiyaasay ilaa 6,000 oo qof maalintii. waxaanay dawladdu sheegtay shuruudo cusub oo ay kamid tahay inuu qofku ogolaanshiyo haysto. ogolaanshiyaha waxaa kamid ah inuu qofku iska diiwaan geliyo application gaar ah oo loogu talagalay si loo dhimo tirada dadka galaya xaramka. marka waxay u egtahay hab cusub oo la doonayo in dib loo soo celiyo cimradii xanuunkana isna aanu u sii faafin halkiisa lagu xakameeyo. marka labada ayay dawladdu sida muuqata ay isku dhaxwataa oo wadanku waxay ahayd mar ay gaadhay tiradu meel sare. marka waxaad moodaa qodobadaas in ay dawladdu imka ka duulayso oo ay u aragtay malaha xilligii ugu haboonaa in dib loo furo. dawladda Sacuudiga ayaa iyadu maamusha labada xaram ee barakaysan waxaana dhaqaale fiican ay ka heshaa adeegyada loo fidiyo dadka xajka iyo cimrada u safra. cudurka COVID-19 oo sabab u noqday in sanadkan la xiro labada xaram ayaa culays dhaqaale ku dhaliyay Sacuudiga. Sacuudigu wuxuu ka helaa dhaqaale aan yarayn gaar ahaan dadka degan magaalooyinka Maka iyo Madiina. waxa kale oo ka macaasha hoteelada la seexdo iyo kuwa wax laga cuno iyo shirkadaha diyaaradaha iyo guud ahaanba tujaarta. dhinaca kale marka la eegana in la badiyo cumrada waxay qayb ka ahayd qorshihii loogu magac daray 2030 ee la doonayay in lagu dhimo ku tiirsanaanta ay dawladdu ku tiirsan tahay shidaalka. marka waxaad moodaa qorshahana inay jug soo gaarsiisay. marka la isku soo duuduubo Sacuudigu waxa uu ka helaa dhaqaale gaadhaya cumrada iyo xajka 12 bilyan sanadkii. sidaa darteed Sacuudiga muhiim ayuu u yahay waana qayb kamid ah dakhligooda asaasiga ah. marka waxaad moodaa dakhligana inay sanadkan kula yihiin iyadoo jiro walwal iyo cabsi laga qabo cudurka COVID-19 oo si fudud loo kala qaadi karo ayaa haddana dawladda Sacuudiga ay sheegtay in ay diyaargarow wanaagsan samaysay si loo xakameeyo fiditaanka cudurka sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ka howlgala warbaahinta Sacuudiga. dawladdu waxa ay sheegtay in masjidka xaramka lagu rakibayo kamarado qiimeeya ama qiyaasa heerkulka jirka. arinta la xiriidana waxa weeyaan arrimihii caafimaadka talooyinkii caafimaadka markii horeba dadka la fari jiray sida in ay kala fogaadaan iyo in ay maxay ahayd afsaarka qaataan. waxa kale oo dawladdu sheegtay in iyana la sameyn doono markasta qiimeyn arinta la xidhiidha taas oo noqon doonto halka marba laga qaadanayo talada ugu dambeynta ah haddii la kordhinayo iyo xilliga la kordhinayaba. markasta qiimeyn joogta ayay dawladdu sheegtay in arinta lagu sameynayo. cudurka COVID-19 oo aan ilaa imika wax dawo ah loo haynin ayaa sanadkan 2020 dunida si aan hore loo arag u saameeyay isagoo xayiray isku socodkii iyo dhaqdhaqaaqyadii nololeed ee dadka dunida ku nool oo dhan.
mahadsanid xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay. haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada. haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.